beledka weligii lagu baahsha diinto ogashada cilmiga iyo barashada aqoontana dugsi looga soo baxo bitaaru ku yaala dugsi looga soo baxo bitaaru ku yaala beledka weligii lagu baahsha diinto ogashada cilmiga iyo barashada aqoontana dugsi looga soo baxo bitaaru ku yaala bustaan weeya ciidlu waa beer masna وقشد كوع عنه باروين تجيبيو بريارها أريبو ودوي كوبدن طاي مستوى يعيدو وعبر مصنعه وقشد كوع عنه باروين تجيبيو بريارها أريبو ودوي كوبدن طاي برعتكيا كروركيو بقبقات فبيائيو ويلدايك بوحدات إتالاي كوانتاي إتالاي كوانتاي برعتكيا كروركيو بقبقات فبيائيو ويلدايك بوحدات إتالاي كوانتاي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دمان صحافة علماء الدينك صحافة علماء الدينك دليرada gabdhaha waxaan salaamayaa salaanta islaamka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب maanta oo taariikhdu tahay 17 bishii 7 degmada Bitaale waxaan ka dhex dhignay xaruntii nabadda degmada Bitaale aan ka dhex dhignay waxaana rabnaa hadduu alla idno maamul iyo federaal iyo heer gobol dhammaan iyo shaaliyada iyo danta Bitaale dadka ay qusayso dhan inay ka soo qayb galaan naguna taageeraan saasaan doonaynaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أولا ورأي الله سبحانه وتعالى هل كان وكل مي أيام ما علمني الله ما هذا سكله ما علم كذب وحن سلام يا غيرت شرفت الضوء وهل كان كل سنة وهل كان وجدان قفل بواتيت الكيس أيام كل سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام سيدا وش جاي قدامي هالدنيا Bitaale waxaan maantay meeshaan ku dhex dhignay oo taariikhdu tahay 17 bisha 7 xaruntii shirarka nabadda ayaan ku dhex dhignay waxaan ka codsanaynaa cid allaaliya cidii ay qusayso deegaanka quseeyo haday tahay jaaliyad haday tahay ganacsato haday tahay cid kale cid allaaliya cidii deegaanku quseeyo ayaa waxaan ka codsanaynaa in nagala qayb qaataan waxaan kaloo ka codsanaynaa dawladda federaalka iyo maamulka maamul goboleedka galmudug iyo jaaliyadaha iyo hay'adaha arrimahan oo kale ku shaqada leh waxaan ka codsanaynaa inay nagala qayb qaataan maadaama wax weeye deegaanku uu yahay deegaan dhibaato badan ku soo jiray 40 sano dal burbur iyo dagaal ku jiray uu yahay maantana loo gudbay nabad waxaan rabnaa nabadda inaad nagala qayb qaataan annaguna aan ka qayb qaadano intaas ayaan ka codsanaynaa
waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed bay dan u tahay dad weynaha dhan bay dan u tahay nabaddu waa shay qaaliya marka waxaan leenahay nagala qayb qaata meelo badan wax lagu bixiyo oo waxaa jira ay ka muhiimsan tahay nabaddu marka waxaan leenahay nagala qayb qaata nabadduna ilaahay baan uga mahad celinaa subxaana watacaala noo bilaabay nabaddii bandiiraley iyo goldogob ka dhacday oo lagu soo afjaray waan soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol baan soo dhaweynaynaa waxaan kaloo soo dhaweynaynaa deegaamada dhiman oo mudug dhan kastaba ha ahaato nabadda laga ballansan yahay ayadana waan soo dhaweynaynaa aad baan u soo dhaweynaynaa waan ku faraxsannahay diyaar baana u nahay inaan ka qayb qaadanno annaguna maanta meeshan waxaan u taagannahay waa shaqo nabadeed waxaan rabnaa in nala ku taageero nala kalena qayb qaato codsigana waa intaas asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi wafanaa lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam amaa bacdu ka qaybgalayaashan meeshaan gurigii nabadda ama xaruntii nabadda kii la yidhaahdo mid kastoo la yidhaahdaba galabta halkan aan ku dhagax dhigayno taariikhdu ay tahay 17 bishii 7aad aan meeshaan ku dhagax dhigayno ka soo qaybgalayaashan waan salaamahayaa salaam bacdigeed intaani waxa weeye dadkii mataqaanaa ergadii bandiiraley nabaddii ka dhacday amaga galdogob ka qaybgalayaashii bay u badan yihiin ragga meeshaan joogaa oo ka soo qayb qaatay sida la ogsoon yahana gobolka mudug waa meeshii colaadda soomaaliya ay ka soo beerantay haddana nabaddii mataqaanaa in laga beeran la raba haddii ilaahay idmo ilaahay noo ahisiiyo sidaas awgeed ayaanu galabta halkan waxaan u dhagax dhigaynaa nabad inaan mataqaanaa u beer samayno ama aan ku dadaalno ama dadweynuhu ku qaato sidaasaan u dhagax dhigaynaa waxaan rabnaa dowladda federaalka maamulada jaaliyadaha bulshada kale oo kala duwan dhammaantood inay nagala qayb qaataan sidaasaan doonaynaa codsina u nahay annaguna waxa weeye wixii daaqada iyo tabartayada inaan ku dadaalno sidaasaan damacsannahay una dhagax dhignay una bilaabaynaa adinkana sidaasaan idin ogeysiinaynaa nabaddaas qof kastaaba waxaa la rabaa inuu ka qayb qaato nagalana qayb qaato wabilaahi towfiiq بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم waxaa maantay oo taariikhdu tahay 17 bisha 7aad 2020 waxaa meeshaan bitaale degmada bitaale lagu dhagax dhigay xaruntii nabadda ayaa bitaale laga dhagax dhigay waxaana reer bitaale hambalyeynahayaan shirarkii galdogob iyo bandiiraley waxaan leenahay hambalyo waxaa kaloo dhagax dhigana cabirkiisu waxa weeye waa dhul boqol lagu dhiftay ah waxaa loo diyaariyey nabad gurigii nabadda weeye waxaa la codsanayaa oo cid kasta oo awood ku leh hadday dowladda federaalka tahay galmudug tahay hay-adaha caalamiga ay tahay walaalaha muslimiinta jaaliyadda oo nabadda u helan ah hadday tahay cid kasta waxaa laga codsanayaa inay taageero u fidiyaan hoyga nabadda iyo shirarka nabadda waxaan aad iyo aad ugu baaqaynaa walaalaha jaaliyadda iyo kuwa deegaanka intaba inay si maaragtay lama filaan ay uga qayb qaataan waayo waxa weeye waa islaax baynannaas nabadduna waxa weeye waa horumarka dalka iyo dadka iyo diinta waayaal waxaan leenahay qayb ka qaata qaybtiina ka qaata qof walbow oo maqla kiliibkan ama arka kiliibkan waxaan leenahay cid kaa xigta ma leh aakhiradaada iyo wanaaggaa dambe waxaa weeye ku talagal waa nabad meeshaan waa meesha nabadda waxaan leenahay nabad baan diyaar u nahay dadka deegaankaani nabad buu diyaar u yahay waxay hambalyeynayaan nabaddii hore waxay bogaadinayaan tan dambe oo soo socota haddii aan la yidhaahdo soo dhowaada dhulkaas waxa weeye wuxuu u baahan yahay sidii loo maaragtay loo habayn lahaa oo lagu dadaali lahaa nabaddana waxaa reer bitaale diyaar u yihiin inay geed u seexdaan hoosta inay u seexdaan bay diyaar u yihiin qayb kastoo ku qabata diyaar buu yihiin waxaa weeye waxaan leenahay soo dhowaada cid kasta oo qayb ka qaadanaysa waxaan leenahay soo dhowaada taageeraa la rabaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu بسم الله الرحمن الرحيم
waxaan halkaan ka salaamayaa akhyaarta iskugu timid oo ah maamulka degmada Bitaale iyo odayaasha kaleeto iyo waxgaradka noo yimid dhammaan waa salaameynaa waxaan ku salaameynaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanka bacdi maanta oo taariikhdu tahay 17 bisha 7 2020 waxaan halkaan iskugu nimid inaan dhagax dhigno xarunta nabadda ee Bitaale ee laga dhisayo degmada Bitaale xaruntaas waxa weeye Bitaale iyo dadka deegaanka dambe u tahay Soomaaliyana dambe u tahay nabadda waa la yaqaanaa qiimaha ay leedahay waxa weeye nabaddu waxa weeye waxyaabaha nolosha furaheedii weeye haddii nabad la helo wax walba waa la helayaa marka xaruntan waxa u dhagax dhignay in sidii nabad lagu heli lahaa sidii dadku meesha uga tashan lahaayeen nabadda uga tashan lahaayeen loogu sameeyo sida bulshada Soomaaliyeed iyo danta macna ummadda Soomaaliyeed looga wada hadli lahaa sidii nabad looga hadli lahaa baan xarunta u dhagax dhigaynaa waxaan rabnaa bulshada caalamka inay nagala soo qayb qaataan waxaan kaloo rabnaa dowladda federaalka oo dhexe ee Soomaaliya iyo midda maamul goboleedka Galmudug iyo jaaliyadaha iyo hay'adaha qaaska ay qusaysa arrimaha nabadda ay qusayso iyo arrimahaas kale ay quseeyaan waxaan rabnaa si sharaf leh inay nagala qayb qaataan waxaan ka codsanaynaa mar labaad iyo marka koowaad iyo marka labaad labadaba waa ka codsanaynaa waxaan rabnaa inay nagala qayb qaataan hawshan culus ee la sugaysa ee ah inaan haddii ku reeyo hawshaas aan dhameeyno haddana bilowgeedu u dhacay dhagax dhigeeduna hadda maanta aan taaganahay oo taariikhdu intaas tahay marka walaalayaal waa ku mahadsantihiin sida sharafta leh oo soo qayb gasheen hawshan dhagax dhiga waxaan rabnaa inaad macna hawshan nala wadaan dadkeena bulshada noo yimid iyo dadka kale madaxda kaleeto haddii ku reeyaan dhageysanaysa waxaan rabnaa qof kasta Soomaaliya wuxuu nagu taageeri karo inuu nagu taageero waa la yaqaanaa islaax wuxuu yahay ilaahayna waa amaanay wax kasta waxa weeye waxa islaax ku bixisi wixii awlaad lagu bixin jiray waxa la rabaa in islaax lagu bixiyo waxa weeye qiimo weey ajar baa qofka ilaahay uga helaya qof walbana aakhir uu leeyahay marka waa mahadsantihiin warkana sii badin mahayo assalaamu calaykum waan salaamayaa dhammaan inta ka soo qayb galayaasha maanta waxaan ku suganahay xaruntii loogu talagalay in lagu qabto shirka nabadeynta waxaa la dhagax dhignaa xarunta Bitaale oo qaban doona shirka nabadeynta qayb watigiisa saddexaad marka waxaan leeyahay ambaliyaan leeyahay haddaan maqalno nabad anaga haddaan reer Galmudug ama haddaan reer Bitaale haddaan nabad maqalno gabdhaha dahabkooda waa furaan keeda istakeedkeeda waa soo bixisaa intaas waxaan u sameynaynaa nabadda waxay nagu tahay wax qaaliya wax la heli karo dad badan ay ugu horeeyay mas'uuliyiin iyo isugu jiray maxaa dad badan oo mudiin mas'uuliyiin isugu jira ka soo hadla nabadda qiimaheeda hadda ma ka hadlayo nabadda qiimaheeda baaqaya jaanto markooda waliba ragooda hadlay laakiin waxaan ka codsanayaa inay nagala qayb qaataan xarunta dhismaheeda soo dhaweynta martida inoo imaan doonto biidnillaahi alkariim aad baa waxaan ku dadaalaynaa inaan soo dhaweyno xaruntaas marka waxaan ugu baaqayaa cod dheer waxaan ugu baaqayaa gabdhaha reer Galmudug waxaan leeyahay ku soo dhawaada xaruntan iyo dhismaheeda iyo waxqabadkeeda in kale idinka fadhiya aad mahadsantiin qayb saxaafadda laga soo qayb gashay gabdhaha isugu jiro inta aad baa idin salaamayaa tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahi raxmaani raxiim aad baan u salaamayaa dhammaan ehelka meeshaan isugu yimid qaybahooda kala duwan gudoomiyaha degmada guddigiisa culummada dhalinyarada gabdhaha sharafta badan oo meeshaan jooga dhalinyarada ardayda waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta joogo meeshii lagu dhagax dhigahayay hoolkii nabadda oo hoolkaasi laga dhagax dhigahayo degmada Bitaale aad baan ugu faraxsanahay aad baan u soo dhaweynhayaa muhiimad gaar ah oo noo leeyahay maadaama maanta hoolka la dhagax dhigahaya uu yahay hoolkii nabadda nabadduna waxa weeye hadda qof walba islaamkii meesha ay saaran tahay ama meesha ay ku taallo waa la ogyahay waxaan ka codsanayaa qof kasta oo kilibkan arka oo daawada oo islaam ah inuu taabageliyo oo garab istaago waxaan kala codsanayaa dowladda federaalka inay ka qayb qaadato meelaha nabaddu ka socoto waayo nabaddu waa tiirdhaxaadka maslaxadda muslimka waxa uu ah maamulka Galmudug sidoo kale waxaan leenahay maadaama degmadani ay hoos tagto maamulka Galmudug inuu gacan lixaad ay ka qaataan ayaan ka codsanaynaa madaxdiisa ay u sareeyaan madaxweyne Qoorqoor
iyo mas-uuliyiintiisaba waxaan kaloo aad iyo aad uga codsanaynaa inay si gaar ah muhiimad gaara u siiyaan deegaankan dadka ka soo jeeda oo jaaliyadda ah oo ama dabad jira ama ganacsato ah ama waxgarta ama meel hawshaasi ku qabsoomaysa og dadkaana waa isku xilqaabeen meeshaan maanta waa ujeedaan hawshii baa la wadaa dhagax dhigii baa yaalla waxaan codsanaynaa in waxa weeye nala ku garab istaago nala soo dhoweeyo sida ay nooga go'an tahaan noola qaato ilaahay idinkiisna waxaan rajaynaynaa meeshaan u soconna waa nabad wax ka weyn oo la qabtaana ma jiraan inaan danta aan leenahay iyo hadafka aan leenahay aan gaarno maslaxad khayr qabtana ilaahay ummadda dhex dhigo meelaha nabaddu ka dhacday oo shirarku ka dhaceenna sida ay ku dhammaadeen iyo hawlahoodii waxay la tahay dadku miidiyaha waa wada fiirsadaa si qurux badan oo kusoo dhammaatay annaguna waxaan rajaynaynaa teenu inay si qurux badan noogu dhammaato waana mahadsantihiin bahda saafadana aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa sida waxa weeye waqtiga dheer ay noo siiyeen mas-uuliyiinta ka soo qayb gashay ama dad jiran ha ahaato ama culmo ha ahaato ama dad waqtiyala ha ahaatana aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waana mahadsantihiin khayr badan baan idin rajaynaya